كل xildhibaanada golaha deegaanku xaq waxay u leeyihiin inay ka keenaan mooshin maayarkooga xoghayaha xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiley Xasan Jirde Maxamuud oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Gabiley ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka ka taagan golaha deegaanka degmada Gabiley waxaana uu sheegay in aqlabiyadda xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley ee mooshinka xilka qaadista ah soo dalbaday ay yihiin xildhibaano oo sharciga ku socday isla markaasina u hoggaansamaya shuruucda dalka waxaana uu sheegay in xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay ka go'an tahay in ay la dagaalanto musuqmaasuqa isla markaasina cid kasta oo musuqmaasuq lagu soo eedeeyo barteeda ay uga hawl gasho horta wariye su'aashaadi weydiisay way jirtaa in khilaaf ka dhex jiro golaha deegaanka iyo duqa kaasoo muddooyinkii u dambeeyayba soo jiitamayay kulley markay shaqo jirtana waa la iskugu imanayaa isqabsi u imanayaa iyo in wax la isweydiiyaa waxaase muhiima khilaafka yimidday see lagu dhammaynaya kulley xisbiga iyo madaxweynuhuba waxay ka leeyihiin ama ay siyaasad cad taasoo ay dalka iyo dadkaba ku hoggaamiyaan khilaaf kastoo yimaadana waxaa loo maraa waddada sharciga waxaana lagu dhammeeyaa wuxuu sharcigu ka ogol yahay cid sharciga baalmarsanna ma jirto madaxweynuhuna waa madaxweynihii ku ololeeyey iyo xisbiga kulmiyaba dadku waxay ku doorteen inay sharcigu sharaynayo tii baana lagu taagan yahay sharaynta sharciguna aad iyo aad bay muhiim u tahay arrintaasina waxay u gudubtay xagga xukuumadda dhexe iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo garhweedeen u yahay maxamed kaahin axmed wasiirka arrimaha guduhu kulley madaxweynaha qarankuna waa ka qayb waxaana lagu dhammaynayaa hawsha sida sharcigu qabo ee ay tahay haddii ay xildhibaanadu sa ay soo sheegeen jirtana waxaa la qaadi doonaa tallaabo cad oo waa hawshooda waa la marin musuqmaasuqa way ka go'an tahay xukuumadda iyo xisbiguba inay la dagaalamaan madaxweynuhu waayo xisbigu hore u ballan qaaday wixii ay bulshadu ku dooratayna weeyaan kulley xildhibaanada golaha deegaanku xaq waxay u leeyihiin inay ka keenaan mooshin maayarkooga waana sharci dee inay dalbadaan mooshin iyagaana xaq u leh hadday arkaan sababaha qaarkood iyagun baana dee taasi ka go'daa haddee maayarku marka horena iyagunbaa doortay oo ka dhigay guddoomiyahooga u doortay haddana hadday xilka ka qaadayaan oy leeyihiin sharci jabin iyo waxaysay soo eedeeyeen taasna iyagunbay ka go'da kulley inay qayb ka noqdaan amba hoggaanka ku sarreeya xisbiga hiigsadaan reer Gabiley waa lagama maarmaan reer Gabileyna kulley dee inayna hoggaanada sare xisbiga kasii maqnaan karin waa arrin jira waana daruuri inay noqdaan hoggaanka ugu sarreeya ee xisbiga waa maxamed cabdi cumar maxamed warka warbaahinta SBC gobolka Gabiley